aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaantiin waa idin salaamay maanta oo ah 5 bisha shanaad ee 2018. Marka ugu horeysa waxaan idinla soo codsiinayaa akhbaaraadkii ugu dambeeyay deegaanka. kadib baan insha Allah taala fikirkeyga dhiiban doonaa. waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa waxaan taasi tiraanyala u dirayaa shacabkii magaalada Wardheer maanta gaarigu kula gadoomay iyadoo mudaharaad beenaad uu Cabdiile yiri isoo banaanbaxa ku socda lagana soo qaaday degmada Daraatoole. alxamdulillah waxaa la ii sheegay Wardheer oo dhul ciid ah dadkii baabuurka uu ku gadoomay ama uu ku kor fariistay iyo dadkii kaleba inuusan dhaawac halis soo gaarin oo dhulkoo ciid ah ama carra asaad u taqaanaan. والحمد لله واحد هاي اللي ما هديو لا أفرق باكومو كجرتا استالك وردير لو مجوجين ما تدك إن لو جرمدو بل شقاله استالك أيال الوقص بين مظاهرات بينات كقب جلان ومجال بناء كذا عمدولات كذا الوقا بنيجي دتك دعوة واستالك يلا إلهي هو بوجدايو عافيو واحد بلا معنية وحبوسو كرنين عبديلي ayay dadkaasu dhaawac uu ku soo gaaray iyo jajabka iyo burburkuba. sidoo kale wuxuu shil ka dhacay degmada Shilaabo gaari uu watanin xildhibaan isku sheegay xildhibaanada deegaanka oo la yiraahdo Cali Carab oo degmada Shilaabo laga soo doorto asaga kalxan baa jabtay dad la socdayna dhaawac xun baa soo gaaray oo gaari qabaal u watay. dadkaana waxaan leenahay Ilaahay caafiyo iyo asagaba inkastoo xaq darro ku socday oo wax been asoo diidi kara uu maaratay uu dadka ugu horseeday mudaharaad beenaad. waxaan jecelahay sidoo kale inaan u mahad celiyo shacabka degmada Goday ama magaalada Goday iyo magaalada Dhagaxbuur oo maanta si fiican oo dhiiranaan leh ugu dhiiraday markii ay lahaayeen nabadii dooni mayno dib u curashaanu doonaynaa u bedelay Cabdiile dooni mayno yiri ilaa uu Suldaan Khayre uu ka sasabay uu yiraaho waxba ha dhihina oo ku gadiyay. sidoo kale dhalinyaradii Dhagaxbuur ee dhiiratay iyo shacabka Dhagaxbuur guud ahaan oo xaqiiqatan diiday inay isu soo baxaan dadkii tuulooyinka laga keenay degmooyinka ama tuulooyinka u dhadhow laga keenay oo rafaad xun ayagana meesha uu ka soo gaaray meesha la isugu geeyay. laakiin shacabka Dhagaxbuur waxa weeye guul bay gaareen geesinimo muujiyeen wayna diideen qasab isagu soo bixi. dhalinyarada dib u curasho dooni mayno daalibka dooni mayno lahaana way ku mahadsan yihiin. dhiiranaantu waa intaasun asaga yiraahdo la isu soo baxo shucuurtiina rasmiga inaad muujisaan marka ayada xaq baad u leedihiin oo soo baxdaan oo aad waxaad idinku rabtaan ama fikirkiina ama dulmigii la idinku hayo aad ka hadashaan. sidoo kale degmada Awbare qallaasayr baa ka dhacay maanta kadib markii dad la qasbay oo meel la isugu keenay oo isla gabdho umula ay ku jireen sida cajalada la soo boostgaray aad ka arki kartaan oo ilmo nuujinaya. kadib dhowr boqol oo ciidan uu geeyay oo liyu booliisa kuwaas oo degmada Awbare culays aad u badan ku haya. waxayna qaban qaabinayaan mudaharaad kale ama isu soo bax kale oo qasab bari in laga dhigo ayada iyo degmada Qabri Bayax ama magaalada Qabri Bayax oo ayadana dad badan tuulooyinka laga soo gurayo caawa kadib markii maanta dadkii ay rabeen ay isu soo bixi waayeen ama ay u imaan waayeen oo tiro ku filan ay waayeen Cabdina uu yiri ku celiya. waa nooc waali kamid ah waxa way dad isoo ka yeer oo qasab igu amaana haddii intii tiradii la rabay ay noqon weydo haddana hal lagu celiyo macruuf baa meesha joogta. waxay ku tusinaysaa musiibada dadka haysata iyo dhibka haysta darxumada. sawirradii waan idiin soo dhigay maanta dadkii laga soo guray degmooyinka Dhanaan iyo Beer Caano iyo Qallaafe iyo Iimay Bari ee Goday la isugu keenay silicii oonkii gaajadii qabsatay ayagoo barxadii lagu mudaharaaday dhex jiifa. weligii ma arag meel lagu mudaharaaday ama isu soo bax dad dhex jiifa oo seexday hore uma dhicin. waa rikood cusub Cabdiile baa ugu horeeyay. waxay ku tusinaysaa daalka dadka ka muuqda iyo rafaadka haystay inay geedka yar ee inta leegay gaaban ay hoos seexdaan ee sawirka soo dhigay. sidoo kale dadkii Qabri Dahar baa ay kana rafaadka ku dhacay oo waliba la dilay oo la garaacay
waxaa dhaawaca magaalada Qabridahar waxaa magaalada Qabridahar dhaawaca oo dhakhtar la dhigayba burkii lala dhacay ninka la yiraaho Deeq Xuseen Maxamed oo degmada Maraaca xal laga soo afduubay ama xoog laga soo kaxeeyay ayaa dhakhtarka magaalada Qabridahar hadda jiifa oo bud lala dhacay maanta dad la bureeyay buu ku jiray cajalada videoga dadka la bureenayo waan idin la soo sheergareeyaan u maleynaa ciyaalka lagu sii daayay magaalada Qabridahar dhammaan ardaydii joogtay ama Soomaaliha haato ama qoomiyadaha kale ama jaamacadda Qabridahar ku jirta ama macaadiyada kale waxaa lagu qasbay inay isu soo baxaan oo meesha yimaadaan haddii kale jaamacadda laga saarayo waa been xaq uma laha jaamacaddu federaal baa maamula cabdiile iyo kooxdiisu idin kama saari karaan marka dambe isagu kiin soo yeeraan waxaan jeclaan lahaa inaad maartay ku gadidaan oo suxuurtiina dhabta aad muujisaan oo dhahdaan dulmiga waanu diidnay mana ogolin dadka shilaabo iyo dhooboweyn laga keenay oo ayakuna caawa ku banjarsan magaalada Qabridahar kadib baabuurtii la gidhaashay ee inay celiyaan la rabay markay celin waayeen oo caawa ku xaniban magaalada Qabridahar dadkan waxaan leenahay Allah u sahlo laakiin mar dambe ha soo lugeena iskarooyinka marka la idin keeno iska diida damiir baad leedahay cidna idin ma qasbi karto kumanaan baad tihiin 100 wiil ama 200 wiil oo liyu boolis inaad ka cabsataan ma war waanu diidnay ma raacayna dhaha iskarogada sideeba hooyo waayeela iyo aabba waayeela iskarogo loo saari karaa oo lagu kortuuri karaa hatta meel ay ka fuulaan ma laha dadku ma qashin baa mise waa dhagax miyeedaan damiir lahayn damqada miyeedaan dhihi karin war hataa waxaan raaci karna maaha iskarogadanu ma fuuli karno sawirradii waan soo dhigay bartayda dadkii iskarooyinka lagu soo gurayay waadna aragteen baan filayaa sidoo kale ayadoo xilli roobaad lagu jiro magaalada Goday waxaa ku xaniban dadkii laga keenay dhanaan qalaafa iyo email bari beer caano iyo qabaleeyada u dhadhow dadkii baabuurtii magaalada iska kala galeen raashin lama siin lacag lama siinin waxaa la ii sheegay caawa dad badan inay qabiil ahaan u raadinayaan waryaha reer hebel oo magaalada degan oo wax la cunaa ama la seexanaa ayadoo xilli roobaad lagu jiro magaaladuna ay dhiiqa tahay meel ay seexdaanna aysa haysanin iyo wadooyinka daadsan yihiin darxumadaas oo dhan iyo rafaadkaas oo dhan dadka masaakiinta waxa uu loo marinayaa kaliya nin waalan ba iska jeclaystay bal in la buunbuuniyo oo la amaano sidii communistiha iyadoo la joogo iyo qarniyadii hore Cold War-kii oo kale oo dadka xoog lagu soo saari jiray oo booran intii la qaato ama xilligii mingistay Ethiopia oo kale waa hal nin oo waalan ayaa wuxuu rabaa dadkii inay qasab isugu soo baxaan oo silaca iyo rafaadka uu u marinaya oo shilalka ay u galayaan nasiib darro ka weyn ma jirto haddii aan laga qabanin aydan u midoobisaad u wada hor istaagi lahaydeen wuu ka sii darayaa damuo ay xaaladiisu ka sii darto hore baan u sheegay damuo oo uu wax khariba sameeyo uu dadka ku sii tunto uu sii laayo uu dhibaato u sii geysto marka waxaa fiican markaas oo kale in si degdeg la isku dhaafiyo in la isku dhaafiyo hal meel looga soo wada jeedsado ayadoon qabiil loo fiirnaynin koox loo fiirnaynin qolo loo fiirnaynin dhibaatada kale jirta waxay tahay dadkeena deegaanka cabdi qabiil buu qaybiyay dhibaatooyinka hadda degmada Wardheer oo kale ama degmooyin beelo badan ay degaan ama fiiq oo kale ayakana reer fiiq baan u mahad celinayaa oo dhiloobay oo bataatan badiiday inay isu soo baxaan ama ay u imaadaan toos bay u qaadaceen waxna loo qabtay oo dil iyo xari ka ahay ma garanayna bay yiraahdeen geesinimo aad u ballaaran bay muujiyeen wali waxaan ugu baaqi lahaa reer fiiqeed inay isu soo baxaan oo ayaka ku mudaharaadaan beritoole ina saxaniya 42 la idin diray isu soo baxa ku mudaharaada magaalada soo dhaafiya waxay fiiq una qabatayn baa saaran raashin looma ogolo dhar looma ogolo nolol kale ma safran karaan galbeedka fog bay ku yaalaan oo Oromiya iyo dhankaas u dhow yihiin meel loo sii maro malaha kontrabaan ma gaari karo magaalada una qabatayn baa saaran inta waxa u dheer magaalada fiiq dilka iyo xariga iyo guud ahaan gobolka Nagaba oo sidii la raba ay liib boolisku ka yeelaan maadaama ayna dad ka soo warrama ama communication-ka uusan fiicnayn oo wadan laami ay samarin iyo jidad ay samarin
oo degmooyinku ay si socon laayihiin yuu uga faa'iidaystaa dadka inuu siduu rabo ka yeelo boqolaal baa la dilay galaalsho wada xasuusataan iyo xoob wada xasuusataan xamaro wixii ka dhacay marka wax ay ugu mudaharaadaan oo tacaddi ka ahayn iyo dhib maba jiraba oo ka soo gaaray weligood cunaqabatayna waa laga saaray marka waxay u baahan yihiin dadkaas inay ayaka ku mudaharaadaan dibjirinta loo soo diray daalimiinta dusha ka saar inay ku mudaharaadaan baa ayaka waajib ku ah ma aha inay u mudaharaadaan cadaadka saaran waana uga hambalyeynaya inay ka baaqsadeen diideen inay soo baxaan waxaan rajaynayaa beritola haddii la qasbana inay mooryaanta ku mudaharaadaan weliba fiiq liib booliskii uu ka soo kaxeeyey jigjig uu keenay badankood wax yar baa joogay maleeshiyaad oo reeraha ood wada garanaysaa marka idinma qasbi karaan waxaa dhagax kaga soo saara saaqidiinta ina saxaniya la socota ee weligood gobolka fiiq aan tegin ma maantay fiiqeed noqonayaan ama nagob ay noqonayaan weligoodba hore maysa u tegin booqashana maysa ku tegin waxbana maysa ku tegin taasuna intaasaan oga baxaya ugu dambeyn waxaan u sheegayaa maanta waxaa lala kulmay ama ay la kulmeen odayaasha deegaanka aqoon-yahanka ganacsatada aada u fara badan oo adisabo ku sugan ayaa waxay la kulmeen xeerlaaliyaha guud ee Ethiopia xeerlaaliyaha waxay u sheegeen dhibaatada meesha ka taagan haddaan idiin soo koobo waxyaalaha ugu muhiimsan ay u sheegeen waxay yiraahdeen deegaanka Soomaalidu waa meel maafiya sidii maafiyada loo maamulaa hal nin baa wuxuu rabo ka sameeya dila dhaca wax sharci oo ka jirana ma jiro waxay yiraahdeen Ethiopia inaanan ka mid ahayn way iska muuqataa oo shuruucda Ethiopia aan lagu dhaqin laakiin waxaanu dilka iyo wax walba xariga hadda waxaa nooga daran bay yiraahdeen kufsiga oo bareen noqday bay yiraahdeen oo gabdhahanagii dumarkayagii la kufsanayo la dhaca iyo dhaca hantidii iyo guryihii oo odayaasha qaar badan oo kamida guryahooda lagala wareegay iyo xaafadahoodii baa laga soo saaray waxaa sidoo kale magaalada Addis Ababa laga qorsheynayaa maalmaha soo socda 600 oo qof oo aqoon-yahan odayaal iyo ganacsato isugu jira oo deegaanka gabi guud ahaantii ka yimid sida magaalooyinka Dirdhaba Jigjiga Shiniile Goday Dhagaxbuur Qabridahar Wardheer Afdheer ka yimid oo iyo Liibaanba iyo Fiiq ka yimid oo isku duuban inay shir ku qabsadaan magaalada Addis Ababa dowladda federaalkaana ay baaq rasmi u diraan si dhabana ay wala hadlaan ayna u sheegaan shuruucda Ethiopia u taala haba la haystee shuruucda Ethiopia u taala Ethiopiaanka kale lagu dhaqo in ayakana lagu dhaqo oo laga daayo wiilkan dib jirka iyo maafiyadan la kor saaray ee sharci wax sharciyaba gabi ahaan sharci muslim iyo sharci gaal midnaba uu sameeyo ka shaqeyn arinta ayada waa arin lagu farxo waxay ku tusinaysaa dhiirashada dadku ma aysan dhiiran jirin way dhiiradeen hadda odayaashii baa dhiiraday salaadiintii baa dhiiraday dhalinyaradii baa dhiiraday maanta sawirada waxa ii soo diraya dhalinyaro ku jira xerada mataqaanaa macadka beeraha ee magaalada Goday iyo meeshii lagu xareey iskuulkii lagu xareey magaalada Dhagaxbuur iyo Qabridahar iyo Wardheerba yaa sawirada ii soo dirayay waa ayaka oo khatarta ay ku sugan yihiin aad dareemi karta ama askarta meesha joogtay la geeyay ee waardiyeynayso yaa ayakoo isqarinayn intay sawir ka qaadaan dadka ayay ii soo dirayeen waa dhiirasho waa guul waa ididiilo fiican bay tusaysaa waxay tusinaysaa dadku inay dareemeen inay xaqooda u istaagi karaan inaan la caburin karin dhowr bilood ka hor qofka inuu telefoonku ula hadlo ayuu ka cabsan jiray in la maqlayo moodi jiray maantana xeryaha ay ku jireen ayaa la soo sawirayay xeryaha ay ku jireen baa la soo sawirayay ayagoo ag taagan bay ii soo dirayeen sawirada oo la hadlayeen bal inta la soo jaray tusaale ahaan bal fiiri inta dadku cabsidii ay ka baabaaday magaalada Jigjiga baqdib mudaharaad beenaad ugu qaban lahayd Cabdiilay wuxuu ogyahay magaaladu inay karkarayso haddii mar la isu soo baxana in dadku asaga ay ku wada mudaharaadayaan buu ogyahay daas way uu meelaha kale iyo uu isleeyahay xiriye ku cidhiidhi dadka oo meelo xiriye ay inta ciidamada reeraha ka dhigtay soo ugeey saasoo tahay baa lagu gadiyay marka dadka deegaanku way dhiiranayaan xaqooday raadsanayaan waxa kaliya inagu rabno waxay tahay dadkeena dibadaha jooga inagu xaqooda ma wada raadin karno waynu caawin karnaa
laakiin dadku ayaka is xoreyn kara dadka deegaanka jooga ayaka is xoreyn kara waxa cidna ma bedeli karto taakula baynu siin karnaa iyo adduunka warkooda inaynu gaarsiino iyo hay'adaha iyo adduunyanaha aanu soo bandhigno laakiin waxa loo baahan yahay inay dhiiradaan ay isku tashadaan ay soo istaagaan ay voluntary ay dhiigooda inay huraan iyo waqtigooda iyo dhaqaalahooda waa dadka deegaanka tiina maanta way muuqataa waa wax ilaahay lagu xamdiyo wali waxay muuqataa ayadoo Soomaali leeyahay oo la isku duuban yahay oo reehebel ahayn wuxuu cabdi ku caanamaalay in badan reehebel baa kaxsan reehebelkaas la burburinaya reerihii kale reehebelkaas u arkayaan tareet ama ay halis u arkayaan marka ma taageerayaan reehebel bas kacay reehebel baa ogaadeen baa dakam laga dhigay reer kala yara kacay buuq reerkii kala lagu wada gadiyo dakam laakiin maanta waxa uu meel cir iyo dhul la istaagi lahayaa waxay tahay dadkii oo Soomaali ah oo isku duuban isu tacaatufaya solidarity muujinaya magaalada markii dib laga geysto magaalada kale dadkii u dhashay ay ka xumaanayaan jeel ogaadeen dadkii ay leeyeen hal la xidho madaxa fa loo bedelo xuquuqdoodii ay wada raadsanayaan min awbar ila mooyaal ila shinniila ila hargeela ila wardheer waa midda ay guusha midda un baa lagu gaari karaa Soomaalida dhulka degan qabiil marnaba kuma gaari karto reer guul laguma gaari karo waxa kaliya oo cabdi ilay iyo dulmiga sidiisaba ay xuquuqdooda ku heli karaan waa ayagoo Soomaali isku duuban wax badan waxaynu isku khaladnaa Soomaaliya iyo Soomaalidan kale ee dhulalkan Itoobiya iyo Kenya ay haystaan degan waa kala labo Soomaaliya Soomaalidu baa isaysa dhaxdeeda wadanka waa xor macnawiyan ba maskaxda loo haysto reehebel baa loo kala maartay maamulo loo sameeyo la isu riixaa laakiin cid kale oo wax la qaybsanaysid ama dawlad kula ma jirto laakiin Itoobiya 100 milyan oo kale ayaad wax la qaybsanaysaa haddaad reer u kala qaybsantid xuquuqdaadi iyo xaqaaga oo dhan baa ku dhumaya ayaa ku lumaya midda kaliya oo 100 milyan wax kula qaybsan kartid waa adoo Soomaalinimo aan hoos uga daadegin oo reehebel fiirin waa adigoo qofka xarshin ka yimid ama gaashaamo iyo kan mooyaala ka yimid ka doolo ka yimid ka afdheer ka yimid iyo ka shilaabo ka yimid ay soo ka mid noqdaan aad isku si u tacaaduftid isku si aad u aragto qof Soomaali in la dulmiyay ama la dhibaateeyay marka taas kaliya ayay ummadan kale ee Itoobiyaanka wax lagu la qaybsan karaa xuquuqda lagu heli karaa midnimo lagu heli karaa laakiin inagoo reehebela ma taqaan anu reehebel baana reeqa sax kalaana cabdiilay waa waxa uu ka faa'iideystay waa waxa uu habeenii maalin meesha ku joogo marba reer buu sheegtaa marba cid buu sheegtaa walaalayaalo waan ogahay Soomaali baana la inay kari maayo Facebookuna aad buu si buunbuuniyay qabyaalada oo public wax laga xishoon jiray ayaad arkaysaa reehebel oo lagu soo qorayo waan ogahay laakiin qof walba dib u yar fikir Somaliland ma joogtid Puntland ma joogtid Jubaland ma joogtid waxaad joogtaa deegaanka Soomaalidu Itoobiya haysato haddii aad Soomaalinimo ku wajahin maalna jaamacad dubad buu xasuuq ka dhacayaa maalna doolo cadow maalna fiiq maalna wuxuu ka dhacayaa wardheer marba meel buu ka dhacayaa mustaxiil waxa weeye la idin ma kala jeclo Soomaali baatiin ummad kale baad la nooshiin bal isku day inaad at least inaad bal hoos u dejisid qabyaalada ama xaraarada qabyaalada inaad hoos u dejisid cabdiile inaad qabiil u arag anu uma arko inuu Soomaali yahay maxay dhaqan Soomaali ma laha waxa weeye waxyaalaha qaarkood oo nasiib darrada waxay tahay dadka qaarkood waxa laga yaabaa aniga iyo cabdiile inay isku si noo arkaan maxaa yeelay abtirsiimaha uu sheegto iyo kayga ayaa isku meel mara waa nasiib darro waxa qof iiga fog ama dhibaatada uu hadda igu sameeyay markaan dadka kala dulmigooda ka hadlay ma jirto haddana nin asagu laga yaabo inuu jigjiga la nool yahay oo dadkiisa wax ka dhibaya baa wuxuu rabaa inuu aniga yiraaho Cabdirashiid iyo Cabdiilay waa isku koox oo qolada aynu cayrsano asaga oo ku gabanaya magacii qabiilka hadda waa asaga dulmiga ama wasiir ah ama taliye booliis ah oo dulmiga qayb ka ah wuxuu rabaa saar qabiil inuu wado oo Cabdiilay ugu sareeyay anigana isku dhinac naga dhigo nin kale oo la dhibaateeyo oo aabihi xiran yahay ama hooyadii ay xiran tahayna ay isku asaga isku dhinac maraan daalimki Soomaalida anigana daalim buu rabaa inaan isku dhinac maro asagana nin madluuma buu rabaa inaan isku dhinac ay maraan
انت ظلمي جديدا انت عدالة ربطة انت متقنا سنان ربطة ايا اسكو قبيلة اسكو ضدقة نينك عاد اسكو ظروف تتهيني اسكو دواتدا ايا مروا باسكو دانتهين نينك عاد اسكو افكار تتهيني اسكو مبادئ اتهين باسكو دانتهين اسكو رير اتهين aan laga dhaadhicin ka digtoonaada way isku dayaan reehebel baynu rabnaa reehebel ka kale reehebel ba waxay naga haysta wax reehebel oo wax ka haysta ma jiro away reer walba daalim la shaqeeyo Cabdiile uu leeyahay qoys walba dhihi kara ama dhibaatada soo gaadhay ehelkaaga kuwa kuugu dhow qabiil ahaan ayaa Cabdiile u jaajuusay ama ku xiray ama uu ku adeegsaday kuwaas uu ku adeegsaday bal u fiirso marka ka aad ilmaadeerka tiinu ku adeegsaday iyo Cabdiile ay ku kala sokeeyeen waa isku mid waa isku xisbi waa xisbi shaytaan iyo xisbi Allah baynu kalnaay waa xisbi shaytaanka la socda Cabdiile weey kuwaas isku qabiil ma tiidin uu kugu beer la xawsan iska jir arinta kale oo khatarta leh uu maanta ka shanqarinayay ninka ah agaasimo ku xigeenka ESTV بينده la yiraaho Cabdirasaaq Biinde uu soo sheergareeyay qoraalkan aan soo dhigay waxay tahay Soomaali iyo in la isku diro Soomaalida especially Shiniile iyo qoomiyadda Oromada in la isku diro wuxuu soo dhigay qoraal uu leeyahay magaalada Dirdhaba Oromo iskala Soomaali waxba kuma laha wanaag kama aha Oromana waxba lama rabo oo kuwa qixinayeen Soomaalida Dirdhabana waxba lama rabo waa in la isku diro rabaa oo ku murmaan anaga iskale oo Cabdi mudaharaadyada laga soo horjeedo Cabdiile ee Dirdhaba ka dhacay ay istaagaan oo dagaal qowmiyadeed u Dirdhaba ka bilowdo yaa dhag jalaq loo siinin waxayna tusinaysaa heerka Cabdiile uu gaarsiisan yahay damiir xumadiisa dalka inuu sadan kala hayn dadka inuu sadan kala hayn maxaa yeelay shalay wuxuu ina lahaa Oromo cadow ah kan baa sidana maanta wuxuu leeyahay Dirdhaba Oromo iskale asagoo raba isku dir berritoola jigjiga haduu mudaharaad ka dhaco waan hubaa inuu dhihi doono jigjiga magaalo Oromo ahaan jirtay naw qabri dahar inay ogaadeen beenna shaki igama jiro waxay xukunkiisa iyo kursigiisa u daran in badanna waan iri hooyadii iyo caruurtiisa hadii uu beec ku helay uu iibin lahaa wuxuu dhihi lahaa ma taqaanaa kursiga haleeydayo qaata ayaga reerkiisu iibin lahaa idinkuna dhul baad ka hadlaysaa marka arinta ayada ah laga taxadaro dadka Dirdhaba degan maamul bay leeyihiin way ku heshiiyeen maayarku waa nin reer Dirdhaba ah oo Soomaali ah waqti xaadirkana wax dhibaato ah oo ka taagan qoomiyadaha wada degan magaalada Dirdhaba ma jirto horaan iyo haddaba marka ha laga taxadaro waa munaafaqadu alifayo marka uu saaleeyo wuxuu rabaa inuu dadka ciisaha iyo Soomaalida degan Dirdhaba uu kiciyo dagaal iyo colaad kale uu abuuro aan dhag jalaq loo siin waxaan ugu baaqayaa maayarka magaalada Dirdhaba ee Soomaaliga ah inuu sida ugu dhaqsaha badan uu ka goosto Cabdiile iyo fidnada uu wado bayaan uu ka soo saaro inuu taageersanayn Cabdiile iyo maamulkiisa maadaama magaaladii aad maayarka ka ahayd oo dhibaato ka abuurayo qoomiyadii isku dirayo ma garanayo xisbigiisa waxaad oga mid ahaatid iyo kooxdiisa marka waa inaad u jartaa xiriirka aadna ku dhawaaqdaa inaad la shaqeynaynin Cabdiile iyo maamulkiisa toona waa maayarka Dirdhaba ugu baaqaya intaas waa intii akhbaarihi ugu dambeeyay deegaanka iyo wixii aan ku daray tacliiq ahaa ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa walaalayaal sidaad ogtihiin ba kacdoonkan dadka deegaanku ay bilaabeen Etoobiyada kalena ka hirgalay waa mid shacabku ay inta badan ay ka dambeeyeen shacabku ayaga is abaabulay si voluntary mutadawacnimo ah hadda dadka aniga akhbaarta ii soo dira ama sawirada ama wararka ila wadaaga qof aan mushaar ku siiyo ama ii shaqeeyo ama aan u dirsado ma jirto aniga qof mushaar igu siiyo oo igu shaqeeyo ma jirto nin walba asaga is xilqaamay tabartii marka waxaan jeclaan lahaa intiina dibadda joogta iyo inta gudaha joogtaba nin walow tabarta aadna isxilqaam haddii aad gurguuran kartid gurguuro haddii aad dadka wanaag u sheegi kartid oo isu soo dhaweyn kartid isu soo dhaweey haddii aad mudaharaad ka qayb qaadan kartid ka qayb qaado haddii aad abaabuli kartid abaabul haddii aad waraaqo magaalada ku daadin kartid ku daadi haddii aad dhaqaalo ku taakuleyn kartid qof la dhibaateeyay ama mid ehelkiisa xidhan yahay
ku caawi dadka eheladoodu jeel ogaadeen ay ku xidhan yihiin ee maalin walba taga jeel ogaadeen ka soo noqdeen dhowrka boqola war mudaharaada markaad ka soo noqotaan jeel ogaadeen magaalada socod ku soo mara idinkoo isku duuban hooyooyinka iyo gabdhaha caruurta ay haydin hormaraan dadkana yahay naloo soo daaya ku dhawaaqaan isxilqaama subax walba jeel ogaadeen baad ku kalahdaan casarkiina waad ka soo carowdaan idinkoon ehelkiinii arag iyo dadkii idinka xidhnaa idinkoo ma aragtay aan la idiin soo daynin marka aad ka soo darataan jeel ogaadeen saad u socotaan wadada sayidka iyo jidka dheer ku mara lug idinkoo la dadka ehelka yaha naloo soo daayo maxaad dooranaysaan markii wiilkaaga ama walaasha ama gabadhaadii 25 sano lagu xukumo xaq daraa 5 sano ay ku jirto 10 sano ay ku jirto kuwii la soo daayay ay noognahay inay ku curyaamaan ha laga dabageeyo hadii la dooni ha laga dabageeyo aad u tagtid xabsiga aad isku waraysataan ku mudaharaad isxilqaan qof walo isxilqaan dhiiri geli dadka ha cabsi gelin intaasan idinkula dardaarmi lahaa dhammaantiin insha allahu tacaala wixii kale akhbaara ila soo aan soo helo qoraal baan idinku soo gudbin doonaa بريتولنا هدي ربي إدمو سيد عادي إنه واحد لايف كان هدنا سوق اللي دونا لكن قف ولوبا إنتاد بيجي ستدون أما عاد آخرتي وحن سوقره ماشي حكيت تجي محن قبل كراده what can I do وعن مرة جاي إف كان دي بوانيك يري ask what you can do for your country not what your country can do it for you إسويدي وح أدو قبل كرت وطن كاجا هاي إسويدين وح وطن كاجا أدي وكو قبل كرا مرك هاد isweydii adugu dadkaaga waxaad u qaban kartid waxaad ka geysan kartid inay dulmi cadaalad helaan waxaad ka geysan kartid sinaan inay helaan waxaad ka geysan kartid horumar inay helaan dhibaatada adiga iyo ehelkaaga ku haysta aamin inay ayna ahayn mid ku gooniya ay dadkoo dhan kula qabaan marka isweydii walaalayaalo nin walba wuxuu qaban karo intaynu dhageysano ama aynu akhrino ina على الشعب محجري ina على الشعب محو سوقري والله ما أنت ساس سوقري فلانقين يفرد كدرنا يسنقني وقتيجا هر ننودنك كامحيجو كاملها وادو دلتي سومالي واتهدد سوماليات وي وديجان كاجي قيبت هذا كقاضو يوحد كو قبن كرتين aniga iyo dadka kale ee dadaalaya ee ordaya iyo kuwa gudaha naftooda riskiga gelinaya ee halista gelinaya midna kaama xigo wadanka kaamana laha mana aaminsan inay ka leeyihiin ninba uu isxilqaamay ee isxilqaama oo fadhiga ka kaca insha Allah taala aad baan idinku mahad celinaya dadka deegaanka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa mar labaad isu soo baxyo nabadeed inay sameeyaan waqtiga ay u suurta gasho ee munaasabka ku ah ayaka og dhalinyarada iskuulada kuwa jaamacadaha kuwa shaqeeya dawladda u shaqeeya dulmiga iyo dhibaatada lagu hayo ee mushaharkoodii laga wada jartay dhammaantiin isu soo baxa meel kastood ku mudaharaad kartaan ku mudaharaada dulmiga waanu diidnay sida mataqaanaa dhaha insha Allah taala guul iyo khayr ayaan ka rajaynaynaa odayaashu way dadaalayaan ganacsatadu way dadaalayaan aqoonyahanku way dadaalayaan adisaba boqolaal ba isugu tagtay shirar bay ku qabsanayaan waxa way xaqooda inay u hadlaan bay u diyaarsan yihiin nin walba qaybtaada qabo oo dhinacaaga aan reerka looga soo dhicin ama Soomaali dhankaaga ay ka leecin waxa aad khabiirka ku tahay ku caawi dadka waxa aad uga aqoon badan tahay ku caawi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aad baad u wada mahadsantiin dhamaantiin